xasan aadan isxaaq oo magaciisa afgarashadu ahaa cabdinaasir jeeri waxa uu wada ka ahaa gaarinoha oo ujeedkiisu ahaa in lagu qarxiyo mid kamid ah baraha laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho hase ahaatee ciidamada amniga ayaa diiday fursad halkaasi looga gudbi karay koodii bishii koowaad ee sanadkan ayay soo bilaabatay fadhiga maxkamadda waxaana dhowr fadhi kadib lagu xukumay dil toogashaha 6dii bishii labaad ee sanadkan waxa uu tababar ku soo qaatay 2009kii xarun al-shabaab ay ku lahaayeen Baydhabo oo ay ula baxeen xarunta Baraa ibn Malik howlgaladiisii ugu horeeyay waxa uu ku soo qaatay Luuqado Buurha Kaba Bakool waxa uu la soo shaqeeyay macallin Janow iyo macallin Geedo oo ahaa madaxii ururinta baada ee qaadata al-shabaab ee gobolada Baay Bakool waxa uu soo noqday darawalka horjoogaha noloshiisa shakiga ku jira ee Axmed Diiriye oo markaasi ahaa u qaabilsanihii kooxda gobolada Baay Bakool xasan aadan isxaaq iyo konton qof oo isoo ku jira ayaa tababar kale oo dilalka qorshaysan iyo dabagalka kooxda dhexdeeda ku qaatay Boosh Madiino oo ah tuulo ku taala Buurha Kaba gaar ahaan goob lagu sii qaldo fikirka dhalinyarada oo ay ula baxeen Abu Jacfar xasan aadan isaga oo wada hub iyo agabka xiriirka ciidamada meel duuleedka ka ah baar dheer ayaa isaga oo jooga xarun al-shabaab lahaayeen la duqeeyay waxaana ku dhintay maleeshiya badan uu ku jiro horjoogihii kooxda Gada Ismaaciil Jabhad iyo ku xigeenkiisa waxaa sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray xasan aadan qaybaha hore iyo hoose ee jirkiisa waxa uu qiray in al-shabaab ay ku qanceen shaqadiisa sidaas darteedna loo ballamay in lagu wareejiyo magaalada Muqdisho oo markaasi loogu sheegay inay ku fashilmeen kuwa shaqada ka hayay magaalada ciidamada amniga ayaa soo qabtay gaar ahaan kuwa aan muuqan waxa uu garabsanaa inuu la hadlayo qof shacab ah balse intii baaritaanka uu ku socday ayuu qarxa gaarigiisa oo isna khasaare kale sii dhaliyay walaalkiis Cabdiraxmaan Abu Safiya ayuu sheegay inuu al-shabaab uu ku qanciyay inuu ku biiro qof amniga wax ka yaqaanan waan ahaa hadana qof la aaminay oo dadkaas dhaxdooday Axmed Diiriye soo maray Xasan Aldoor soo maray Fanaxan soo maray ayaan ahaa ugu dambeyntii sanad kadib maanta oo maalintii uu dhacay weerarkii 14 Oktoobar ayaa lagu fuliyay xukunka ee maxkamadda hore u riday sanad kadib sida uu akhriyay warbaahinta dhamma Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd kowdii bishii koobaad 2018 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay xasan aadan isaaq cali 23 jir ah ina xaawo maxamed cali ku dhashay Baay kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab mas'uulna ka ahaa labadii gaari ee 14kii bishii 10aad 2017 ku kala qarxay isgoyska Zoobe iyo wadada Danwadaagaha sidoo kale waxa lagu dacweeyay in gaariga ku qarxay wadada Danwadaagaha oo isaga gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad gaaraya 776 ruux taariikhdu markay ahayd 6dii bishii labaad 2018 dambiile shabaab xasan aadan isaaq cali waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday labadii qarax ee ka kala dhacay isgoyska Zoobe iyo wadada Danwadaagaha 14kii Oktoobar 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 14ka bisha 10aad 2018 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq toogashada ayaa ka dhacday fagaaraha cadaaladda ee iskool booliisiya ama General Kaahiya ee magaalada Muqdisho waxaana goobjoog ka ah gudoomiyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida General Liban Cali Yarow iyo gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote waxa sidoo kale jooga mas'uuliyiin ka socda xafiiska xeer ilaalinta ciidamada saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga dawladda hoose iyo dadweyne kale Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho